ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug iyo kuwa dadka deegaanka islamarkaasna dhowrka sane lasoo dhaafay fariisin ku lahaa meel u dhow degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug ayaa maanta dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaa meel u dhow degmada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug halkaas oo fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidankan ayaa idaacaddu kulmay u sheegay in qorshaha weyn howlgalkan maanta ay wadaan uu yahay sida ula wareegi lahayn degmada bacadweyne ay ku sugayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay gudaha u geli lahaayeen saraakiisha ciidamada ammaanka waxay xaqiijiyeen in dhowr jiha ay ka weerareen deegaanka islamarkaasna wax ka yar 10 kilomitir u jiraan deegaanka bacadweyne saraakiisha ciidamada ammaanka waxay sheegeen in xubnihii ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay badi iskaga carareen deegaanka bacadweyne islamarkaasna ay gaareen sida xogta ay ku sheegeen deegaanka caad oo ka tirsan gobolka mudug halkaasna ay ku leeyihiin fadhiisimo waaweyn saraakiisha ciidamada ammaanka waxay sheegeen in howlgalkan ay ka garabsiinayeen ciidamada dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo iska soo raaceen degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidamada ammaanka waxay sheegeen in howlgalkan uu yahay mid si joogta u socon doono islamarkaasna dhankooda ay dhaqaaqi doonaan sidoo kalena ay geli doonaan dhowr fariisin oo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka bacadweyne qeecad hareere dheere iyo shabeello kuwaas oo hadda fariisimo ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab galmudug ayaa dhowaan sheegtay in dhowr jiho ay ka weerari doonaan deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab ee ka tirsan mudug iyo galgaduud waxaana galgaduud qaybo ka mid a hadda ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo milatariga Soomaaliya waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan ay gudaha u galaan deegaanka ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaas oo in ka badan 15 sano fariisin xooggan ay ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab dhinaca kale deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud waxaa maanta ka socda abaabul xoogan oo ay wadaan dadka shacabka iyo ciidamo ka tirsan kuwa xoogga waxaana la doonayaa in lagu weeraro fariisimo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka baaladheer islamarkaasna wax ka yar 30 kilomitir deegaanka qaayib u jira islamarkaasna uga beegan dhanka koonfur bari maalmaha soo aadan sida ay sheegtay galmudug ayaa la filayaa in si guud galmudug uga bilowdo howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo muddo kooban lagu doonayo in lagu qaabto guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan galmudug ee hadda ay ku sugayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab